Asalaamu calaykum dhalinyaro. Soo dhawaada oo macalin Maxmuud. Casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankan ereyo meesha noo saaran. Ereyga koowaad rifle. Rifle waxay isku macno yihiin yani gun, qori. Yes. A loud shot came from the rifle. Xabad ayaa waxay ka timid dhanka qoriga. Yes. Ereyga labaad rifle simply waa gun, qori. Ereyga labaad saver. Saver waa verb, waa ficil, yani waa qof inuu wax jeclaado ama dhadhankooda ha jeclaado ama urtooda ha jeclaado oo ha ku raaxaysto. Taas ayaa la yiraahdaa saver. Yes, saver. Ereyga saddexaad sentry duty waa waardiye. Sentry duty waa qof shaqadiisu ay tahay waardiyanimo. Watchman waa dhihi kartaa, guardna waa dhihi kartaa. Yes, sentry duty. For example, he stood on sentry duty at the gate. Waardiye ahaan buu ganjeel ku taagnaa. Yes. Ereyga afraad technical hitch. Technical hitch waa cilad yar oo yani dhanka kombiyuutarka waxyaalahaas ka yimaada. Technical problem simply. Adigu cilad yar ama yani delay ama qalad yar oo xagga kombiyuutarka ku yimaada ayaa la yiraahdaa technical hitch. Ereyga shanaad transfusion. Transfusion waa in qofka dhiig loo shubo. Tusaale qofkan baa dhiig lagu shubayaa ama dhiig baa laga shubayaa. Yes, transfusion marka waxa waaye blood transfer. Tusaale bukaanka halkan uu seexanaya, dhiig baa lagu shubaya. Transfusion, blood transfusion. Yes. Ereyga lixaad traumatized. Traumatized waa qofki markii ay dhibaato ama dhaawac nafsiyan loo geysto ama xaalad ay u geysto. Markaas ayaynu leenahay traumatized. For example, many people are traumatized after the wars. Dad yoo fara badan dhaawac nafsiyan baa kasoo gaaray dagaalka dabadii. Ereyga toddobaad trench. Trench waa dhufays. Ciidamada markay dagaalamayaan dhufays bay galaan. Dhufayskaas ayaa la yiraahdaa trench. Ereyga siddeedaad truce. Truce waa agreement. Yes, heshiis. Inta badan waxaa la yiraahdaa waxaa loo isticmaalaa laba wadan oo isdagaalayso oo xabad joojin lagu dhawaaqo. Xabad joojinta waxaa la yiraahdaa ceasefire. Truce waa agreement ama heshiis. Yes. For example, a truce ended the long fight. Heshiis baa soo dhameeyay dagaalkii dheeraa. Ereyga sagaalaad scorpion. Scorpion waa hangarale. Yes, dibqalo. Dibqalo ama hangarale sida u taqaanid bahalkaas ayaa la yiraahdaa scorpion. Yes, the last word scathing about waa in qof aad canaanatid, cambaaraysid weliba si harshly ah. Yes, qof markaad canaanatid ama cambaaraysid oo saan baa tahay, kan baa tahay, adigu aad ku qaylisid ayaa la yiraahdaa scathing about. Yes. For example, he spoke scathingly about the team's performance. Wuxuu canaan iyo cambaarayn fara badan kasoo jeediyay qaabkii ay teamka hawsha u soo bandhigeen ama performance-goodii. Cashka intaas ayuu ka yahay. Keep learning and have a good day. Bye bye.